waxaa la yiraahdaa waxay wax u dhan yihiin ilaahay subxaanahu wa tacaala kale wax u dhan yihiin il waxay haysana ilaala ka dhanbay Soomaali hore u tiri il waxay hays ilaala ka dhan walaalkeen Axmed Cabdullaahi cid kastaba wa u qirayaa waarimaysida weeraa ka hartay weer way ka hartay runtii mar loo dhaca magaaladan ama ha noqotaa dawladda Kenya dhana meesha iskugu imaatay oo maanta istaamdiinaysa noqotaya iyo laami noqotaya iyo isbitaal noqotaya iyo wax la sheeg male iyo iskuul wax ka dhisaya ee meel kasta iyo muxuu ahay mega dams dhisiyaba waa weer isaga ka hartay biidin Ilaahay tacaala waxaana leeyahay nin muxuu ah wax ka sheegay iyo nin amaanaba Axmed walaalkeen gabanaha wala xasuusan doona wanaagana lagu xasuusan doona is haysata isma mahadisay hore Soomaali u tiri wuxuu galay markuu ka daga waxa weeye kursigan ayaa nin kasta u garan ka doona runtii marka loo dhaca waxaan leeyahay ilaahan ku baryayna runtii joogitaankaada ka hor culama dawlad gashay ma isan jirin laakiin runtii waa mid lagugu xusawe oo beesha culimada ay kugu xusta weeye ee Soomaaliyeed magaalada gobolkan degan way ilaahay waxaan ka baryaynaa waxaad samaysay wax ikhlaas ah oo ilaahay subxaanahu wa ta'ala ka abaal mariya oo ku gala ajirkaada ilaahay kaaga dhiga gafafna bani aadana loo yahay qof kastaba waa u gafayaa cid ay wax u dhan yihiin ilaahum baa ka jirta ilaahay subxaanahu ku damay dhaaf ilaahay ka baryaya waxaan u mahad celinaa dawladda county-ga khayr Allah idin sii barakallahu fiikum oo u weyn yahay gabanaheena Axmed Cabdullaahi khayr Allah siiyo oo isu keenay culimada iyo sheekha inuu macnaha culimada isugu keena macnaha arintaas go'aankaas gaaray ilaahay khayr badan siiyo waan u mahad celinaynaa ilaahay mahadiisa kadib waa mahadsan yahay wax fara badan uu qabtay ninkaas magaaladeena maanta adaala dhaxmara nin walba meeshuu joogo maanta nin walba markii uu shaqo qabto ama howl uu haaya hawshaas uu haaya in lagu dhaliilaya laga yaabaa oo leeyahay wuxuu yahay iyo kan buu yahay iyo kan uu yahay laakiin waxaad ogaanaysaan ninkii gabanaha dhaliilsan magaalada dhaxmara magaalada soo dhaxmara ninka asaga magaaladan aan maanta joogno Wajeer haddii aad doontid inaad dhex qaado meel kasta u dhex qaadid maanta wada laami baad ku soconaysaa alxamdulillaah wixii aan ku qaban jirnay magaalada dhibaato ahaa ilaahay wuu naga saaray ilaahay khayr ha siiyo waa dadaalka uu sameeyay waana ku mahadsan oo ku amaanaynaa ilaahayna khayr badan ha siiyo insha Allah tacaala culimada waxaan leenahay ilaahay idin barakeeyo dadkii macnaha sidaas oo kale u sameeynay ummadan wax u qabanay in la garab istaaga waa loo baahan yahay insha Allah tacaala